waxaan jeclaan lahaa meeshan waxaa ila yaala identity cardka Kenya iyo ka Soomaaliya bitaqa alhawiya iyo passportka Kenya iyo passportka Soomaaliya maxaa ku kala qoran bal meesha la ina geeyay baan doonayaa inaan misaal idin ka siiyo kaarkan waa kaarka ay dawladda Soomaaliya bixisay waa kaarka aqoonsiga ruuxa Soomaaliga ah passportka lagu siiyaa Soomaa waxa ku qoran marka la soo gaaro ruuxa jinsiga uu yahay waxa ku qoran kelimada carabiga al-jins waa sax Soomaaligana waxa ku qoran ma qorna waxa qoran lab ama dhadig yaa qoran laakiin Englishka marka la yimaado luqada Englishka maxaa qoran gen baa qoran gen maxay tahay gender oo la soo gaabiyo passportka ay dawladda Soomaaliya bixiso waa ka waay asagana meesha jinsiga ruuxa tilmaamaya waxa ku qoran kalimatul jinsi oo carabiya lab ama dhadig oo Soomaaliya laakiin marka luqada Ingiriiska la yimaado waxay qorayaan gender soo waxna dagaalayna waa dawladda Soomaaliya kaarkay bixisay passportka hadda bixiso waxa ku qoran gender ba ku qoran maxaa ku yara ku qornaan jiray ka Kenya maxaa ku qoran kan Kenya kaarka muxuu ahaayay waxa la yiraahdaa identity cardka Kenya waxa ku qoran ruuxa jinsiga uu yahay sex ba ku qoran sex kuna laba mid u doonaa ama wuxuu noqdaa nin ama wuxuu noqdaa dumar male ama female buu noqdaa laakiin genderku waa kelimo cusub oo waa kelimadan ka hadlaynay Kenya lama gelinin passportka Kenya marka soo qaado sidoo kale waa isagana kuma qorra gender kuma qorra waxa ku qoran sex ba ku qoran oo marka ama male ama female ama lab ama dhadig passportada Afrikaanka saasa ku qoran bal waxaad isweydiisaan dawladda Soomaaliya iyo Soomaali meesha sex maxay uga guureen oo gender u qaateen ya ما يفهمون بها سينو فهمسنين متعلمين واي waxa wax dhigay mutacallimiin waay aqoon-yahan waay luqada iyo erebixinta way yaqaanaan isticmaalka hadda loo isticmaaliyo dhanka loo wada way yaqaanaan ceeb waay waxa noocan oo kale ah ceeb waay dawladii dalkii muslimka ahaa dadkii muslimka ahaa inay horboodo wax yiraahdo gender maanta oo dokumentiyada ku qorto dawladihii gaaladuna ay diidaan soo ceeb weyn ma waxaan ka hadlaynaa ka weebar dagaalka lagu la jiro maaha inaan isu dhiibno noo roodno maaha waana mid keenaysa dumarkii siyaasiyiinta inoo ah inay wax noocaas oo kale horboodaan oo public u horboodaan oo hatta madaxdii iyo dadkii wadanka maamulaya toona aynan hal kelima ka dhihin waxa uu ololeynay dokumentiyadiina waa lagu qortay بينما هذا تمات عالم الإسلامي دجال بالغلة شرا فكرة نعاس وكلا سعودي جا كوي توان بلد جوده هذا وحي كم مسافرين ودن ككيريان صدق كن أودت كنوع عسى كيريان ودن ومرة كور هلا المسافرين قطر وهذا عيارها عالمي مرة ويكسر عدين ما يكون سمين ودت كنوع عسى وكلا سلام سعتان ديارة دي هودا يدو كسر جرده هودا كعليه ويدهن مسوق الكرام ودن علامة دي أصلاً تودن كام موقع كريس دولتي أفريقيا قالت دجال ما يقدر كيسان أوغندا يوكينيا يدولتو سيقولت دجال ما يفكر كنوع حنو كلا أنا كان هنا الدوكيومنتية إنه كقرط دولة الصومالية سو عيب وين ما يا وركاس جارسيا لما كان بيجها بفردي وركا جارسيا عيب تين الله أستره إلهي تبارك وتعالى هينا حفظيه الدنيا أقرب الله هينا حفظيه إلهي دينتنا هينا حفظيه أخلاق دين الله ينوح حفظيه أقرض دين الله ينوح حفظيه الدون كان الله ينوح حفظيه أولاد دين الله ينوح حفظيه إلهي تبارك وتعالى في تنكي آفاتك الله ينوح حفظيه
shayaadiinta iyo sharkooda Allah inaga xifdiyo fitanka iyo wixii wada Allah inaga xifdiyo muslimiinta Allah xifdiyo dalalkooda iyo deegaamadooda Allah xifdiyo fidradooda Allah u xifdiyo nabadgeliyo buuxda Allah siiyo midnimo iyo dawladnimo Allah siiyo diintooda ku dhaqmaan iyo akhlaaqdooda ilaashadana Allah siiyo ilaahay wixii sharwado dhan haynaga qabto hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam